Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka soo dhawaada barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa dad caan ah kuwa oo ku guuleysta nolosha balse bilowga koowaad ee noloshooda la soo kulmay rafaad badan balse kadib noqday dad caan ah oo dunida magac ku leh noqdayna dad la qadariyo la maamuuso lana sharfo runtii dunida aad iyo aad bay la yaab u leedahay intaana muuqaal ku guda gelin fadlan haddaad nagu cusub tahay ka mid noqo saaxiibada nagu xiran oo janaalka subscribe inoo saar muuqaalka inoo laagaray si u gaaro saaxiibo sidoo kale u wanaagsan sheertan ka ilaawin oo la wadaag saaxiibadaada qaybta hoose commentiga inoogu reeb wixii fikir aad haydid intaan muuqaal ku guda gelin waxaan ku su'aalayaa su'aal weligaa ma la kulantay qof guuleystay isagoo aan la kulmin guuldarrooyin waxaan rajaynayaa inaad ka jawaabi doontid su'aashayda number one ra-iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Winston Churchill. Churchill waxa uu ku guuldareystay fasalka lixaad waxaana looga adkaaday doorashooyin kasta oo lagu soo doorto xafiiska dowladda ilaa uu ka noqday ra-iisul wasaaraha Ingiriiska isaga oo 62 jir ah. Markii uu la kulmay golihiisa wasiirada May 13 1940 xilligaas oo Ingiriisku ku dhawaaqay inuu galo dagaal ka dhanka ah Jarmalka waxa uu ku yidhi wax aan bixiyo ma haysto dhiig iyo dhib iyo dhidid mooyaane golihiisa wasiirada ayuu ku yidhi waxaan aaminsanahay inay ahayd go'aankii Churchill inuu wajahayo guuldarradiisii hore go'aankiisii uu ku hogaaminayo qarankiisa sanado badan oo dagaal ah kadib waxa uu qoray ereyada caanka ah weligaa ha dhiibin waxba weyn ama yar weligaa ha siinin marka laga reebo xukuno sharaf iyo caqli wanaagsan weligaa ha quusan adiga su'aal ayaan ku weydiinaya adigana daawanaya ma waxaa tahay sida Churchill ma waxaa tahay qof dadaalaya oo doonaya inuu guuleysto ka run sheego guushiisa mase waxaa tahay qof quusanaya oo isdhiibaya waxaan rajaynayaa inaad ka jawaabi doontid su'aasha qofka labaad waa Thomas Edison macallimiintiisu waxay yidhaahdeen waa qof doqon ah oo aan waxba baran karin waxaa laga eriyey labadiisii shaqo ee ugu horreysay waxaana la sheegay inuu yahay qof aan hal abuur lahayn wuxuu isku dayay in ka badan kumanaan mar ayuu isku dayay si uu u keeno iftiinka nalka wariyey ayaa su'aal weydiiyey oo ahaa soo ma dareemaysid guuldarrooyin waqtiyadaas badan oo aad isku dayday kumanaan mar oo aad isku dayday soo ma dareemaysid guuldarro waxa uu ugu jawaabay ma aanan guuldarraysan 5,000 oo jeer waxaan ogaaday 5,000 oo siyaabood oo aan shaqayn haddaba adigu see tahay marka ay arrimuhu u socon waayaan sidii aad rajaynaysay ma waxaad ku curyaaminaysaa noloshaada si aad uga tagto horumarkaaga mase waad dadaalaysaa oo wax walba noloshaada waxbaad ka baranaysaa cashir miyaad ka baranaysaa mase dib u dhac ayaad samaynaysaa waad ka tegaysaa oo waxaad leedahay arrin walba meel walba waxaan lama samayn karo waxaan waa caajis lama qaban karo hawshan miyaad leedahay mase waxaad noqon doontaa qof halyaaya oo dadaalaya saas miyaad noqon doontaa mase waad ka tegi doontaa kolley inaad ii jawaabi doonta ayaan rajaynayaa qofka saddexaad Albert Einstein ma hadlin ilaa uu ka gaaray 4 jir mid ka mid ah macallimiintiisa ayaa ku tilmaamay maskaxiyan gaabis inuu yahay yaraantiisii hadalka xitaa uu ku waxaana mar loo maleynayay inuu maskaxiyan xitaa ahaanin naafo inuu maskaxiyan xitaa yahay ayaa loo maleynayay waxaa laga soo eriyey iskuulkii inuu galo ayuu ku guuldareystay wuxuu helay tababar xoogaa ah iskuulkii ayaa dib loogu celiyey waa la aqbalay dhowr sano kadib markuu qaatay shahaadada PhD waxa uu helay abaalmarinta Nobel Prize ee fiisigiska waxaana guud ahaan loo aqoonsaday inuu yahay garaadka casriga ah guuldarradii hore awgeed Einstein wuu quusan karay sida iska cad looguma talagelin inuu noqdo qoraa ama afhayeen laakiin waxaa loogu talagalay inuu noqdo fiisigiste nidaamka ugu sarreeya furaha soo saarista booskiisa adiguna see tahay su'aashayda waxaan rajaynayaa inay soo noqnoqotay ma u malaynaysaa inaad tahay qof nolosha ku guuldareystay sababtoo ah waxaad ku fashilantay hal qayb oo nolosha ah waxaa laga yaabaa
in guuldarrooyinkaas ay yihiin fariin ay tahay inaad u fiirsato, isku day wax kale, oo sii wad inaad isku daydo ilaa aad ka ogaanayso meeshaada. Wax walba waxay leeyihiin boos, qof walbana boos baa loogu talagalay, qof walbana waxbuu ku fiican yahay, ilaa aad noqon doonto qofka booskiisa ka fadhiista noloshaada. Marnaba ha ka caajisin, noqo qof dadaala, nin walbaahina ilaa dadaalkiisa uu ka run sheego ma gaaro hadafkiisa, noloshiisana kama run sheego ilaa uu noqdo qofka si dhaba noloshiisa uga run sheega. Haddaad arday tahay, waxaad noqotaa qofka ugu horeeya ee si dhaba riyadiisa uga rumeeya. Ardayga waxaa loo diraa exercise hadaad ka shaqeydid, si dhaba u dabartid maadadaada, uga shaqeysid, juhdi dadaal ku bixisid, waad ka run sheegi doontaa, waadna ku guuleysan doontaa. Laakiin haddaad ka gaabisid, waad ku dhici doontaa qofka ugu hooseeya ee fasalka ayaad noqon doontaa. Haddaad shaqaale shirkadeed tahay, shaqadaada haddaad ka run sheegtid, waxaad noqon doontaa qofka ugu sareeya shaqada, mushaarkaagana waa lagu korin doonaa. Haddaad tahay qof xor ah oo si xor u shaqeysta, shaqadaada haddaad hormarisid, waxaad noqon doontaa ganacsadaha ugu sareeya ganacsiyada magaalada, ganacsigaagana kor ayuu u kici doonaa. Haddii aad tahay macallin, haddaad kordhisid macallinnimadaada, tababarkaad bixinaysid haduu kordho, waxaad noqon doontaa professor haddaad sii tahayna professor si fiican oo shaqada usii kordhisana professorka ugu fiican ayaad noqon doontaa magaalada. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday. Haadaa wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.